السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحابتي قالي ملك سجلتوا والسلامتين هلكم waxaan ku taagnaa afar nin oo waaweyn waxaan ku waa Ismaan waa Mahdi waa Khadar halkan waxaan u taaganahay inay asmino doorato asoo boqorada daadmareed waxaan ku jirnaa shukaansi layfa bal waa ayaa ugu horeynaya Ismaan كل أنا إسكي ماشي كسيني منك أقول صباح يا أنا هاي وأنا صباح شارخها كصباح ده هالنوع هذا ماشي رجوي بقى ترتن كتير كل يوم حسلنا هاي نوال بدوا برنامج كو حوالي أفكار أقولكوا جرواي كل يوم نوال بأفكي سي يا ودعين كرا marka anu waxa lahay gul barjina inkastoo anu sideeda aabaha gul darada hay moogta ka saacadii ma anu waa ogahay ina gul dareysanay laakiin waa dadaalaya laakiin asxaabay dhamaantiin aad iyo aad baan idin salaameynaa rag badan oo hanjabay arkay rag de cabashooda xoojinayeen oo arkay ka howde khadragan kalsooni ku soo istaagay deemar roodha la xash ma hadalun baa la wadi waxaan ogay xafada yarna raggan ka hor qaadayo koodhaha yaa ugu horeynaya taan markaa asxaabay waad aragtay nin walba afkiisu wax ku dhacsanaya qof walba wax la siinaya 4 daqiiqo soo shukaansan la asma wala markaa war magacayga cali balanaha waxaan ka soo dhaaqay aan ka soo fiistina hooyee aragtidaan ku arkay adiga sax aragtidaas oo adiga qanacay sax meeshan jooga qurux badan ee fadhna waa beer beerta waxa loogu talagalay lamaano inay fadhiistaan adigana waxa ka walaynad kaliya fadhido marka waxaan maleynayaa inaad kaliya lan ku tahay waxaan jeclaystay inaan ku labeeyo sidoo aragtaa inta soo fadhiistay inta soo fadhiistay maxaa la isticmaalay wax walba maxaa ya wax walba waan hayaa adu wax walba aad jeceshahay waan hayaa saaso maxaa ka qoraa markaa waxa laga qortaa laakiin waxaan soo fadhiistay anigu wani waa soo kaxaysan kariyay ilaa waxa halkan soo fadhiistay muhiimadda aan kaado muhiimadda waxaan soo fadhiistay inaan adiga ka helay keelitaanka ka helay halkan soo fadhiistay keelitaanka adiga heshay iska soo dhiibay meeg iska soo dhiibay saka intaan meeg dhiibay waxaad ii sheegtaa halkan waxaan soo adiga way wadaay xigalaha wada u digtayso gelinaysa aniga walaal waxa halkan soo fadhiisatay baan ku weydiiyay waxaan soo fadhiisatayna waad ii sheegtay marka insha Allah kuwa ka dambeeyana xeero bareegaya laakiin digta iska daa may wada digtaayada waan ku dhashay ma aha mid aan ahay barwayo sida way walaal aad baan ku salaamay markaa aan ka qaado la soo dhaw walaal horta waan dhawahay kolley imaka tartan baan ku jiraa sidaas ay tahay gabadh culusna way hor fadhidaa sax marka insha Allah waxyaabihii aad ku dooran lahayd ee aan ragga kaga duwanay ayaan doonayay inaan ku sheego anu khadar ahaan wax ragga kaga duwanay horta qof ma ihidee naaga badan oo shabeel naagooda ama shalmad raaca alxamdulillah waan haystaa hanti ugu filan oo maanta dee gabadh aan ku qabtiro ama aan ku dhaqo sidoo kale ma doonayo anigu haddii aad i doorato yacni in dee xidhiidhkeenaas ama doorashada aad i dooratay wax meermeera iyo wax madmadow aan geliyo kolley kuwaas waa calaamadaha ragga kaga duwanay marka intaas waxa weeye inta aan ragga kaga duwanahay waxaan rajaynayaa inaan dooran doono ubax baan meelahan ka dhaweyn waxaan jeclaa ubax qurux badan oo sida aad u soo labisatay arfaayo oo udgoon inaan ku guddoonsiiyo marka insha Allah intaasaan ku tartamayaa waxaan ku leeyahay khadar meelaha u dhaaf insha Allah ka horta marka hore inaan qurux badan baad ilaahay jamaal u dhameeyay dumarka waxa kaliya lagu qaataana waa qurux ما شاء الله waan kugu darayaa iga degdegi markaan inta kaga yimaado quruxdaada iyo jamaalkaaga ma sha Allah aan u yimaado intii anigu aan kugu maamuli lahaa intii raganimadeyda horta marka hore rag qurux ma leeyahay dumarka qurux leh marka maanta waxaan ku leeyahay anigu
horta wax alla wixii aad u baahan tahay ee gabadhi u baahanto madaxaagan keenaya horta marka koowaad dahab iyo doolarkii aad doonto waa labada waxay dumarku ku jecel yihiin moogta dahab iyo dumarku wada mid maaha laakiin la saar waan ogahay laakiin waxa koowaad ay dumarku aad ku sii jecel yihiin siba lacagta waa la saaxiib moogta la saaxiib yihiin hey way saaxiib ma gale lacag ma gale horta dahab iyo doolar wixii aad u baahan tahay madaxaagan keeni lahaa dunida meeshii aad u baahato dalxiiska oo keen lahaa midda kaliya ragga dheer waxay tahay waa lacagta iyo jacaylka qofka hadduu ku jecel yahay lacagna hayo waa labada quraan la isla helin moogta ha ka noqon lacag labadaba isku darso yaa ka noqonina wad marka insha Allah bidmilaa karim waxaad rajeynaysaa rajadu waa aad 90% aad bay u fiican tahay rajadaydu hayo insha Allah sala akhri doona way hello walaalo soo walaalo walaalo صح seeta walaalo insha Allah kawarshida baata walaalo qurux badan ma sad marka waxa saddex gabadhaas oo qof la xulan karo xula markaas inay soo dhawaysaa raba kolley dooqo la yaa male صح calafna waa caleemadaad wada waxaan waaye gabadhna waxay u taagan tahay waxa waaye waa xiriirkaasna waxaa loo maraa waa asaaska guurka marka waxaa jeclaystay da'yarta waqtigan kacday ama jiilka maanta soo barbaaray oo waxay u sitaa tahay marka waxaan ku dooranay inaan alaabtayda ka shayda ugu maamuso jacaylkuna waxa weeye waa midheero miraha geedka sida geedka bilaha oo kale maaragtay markii dhulka lagu rido kadib uu soo biqlaa markuu soo biqlo uu yaro koro waxaa laga xiraa marab baa lagu xidhaa cayaanka waa laga xiraa shagab baa lagu xidhaa micnaha kadib markuu soo yaro koro qaangaadhana waxaa lagu sameeyaa micnaha dabaylo si inuu qaadin tiir baa lagu xidhaa kadib markuu weynaa geedkaasi haddii uu cambadii midhihiisa la gurtaa marka jacaylkuna waxa weeye waa saas oo kale bif buu leeyahay siduu ku bilaabmo oo fudud yahay laakiin siduu ku jabo adag marka aan waxaan ku oray inta guudka sarax dawaarta wixii lagu maamuusi lahaa ay ka shooda lagu hanan lahaa ayaan kugu daadihinaya jacaylkayga dareen ka shayda haddaad dareemi lahayd waxaa ku jiro kaliya laab adiga kaliya laab ayaad qushuuci lahayd marka waxaa rabaa kolley anima raba waqti dheer iyo madadaalo inaan kugu rido waxaa weeye muhiimadda dhantalaa kala hadlo oo gabadh yar waxaad waqtigan soo korayo gabdhahana waxaa qalbiga uga hanan kara ruux macnaha xanaanayn kara dulqaad badan leh duruus badan leh waayo araga jacaylka wax ka yaqaana nolosha wax ka jeli kara unbaa fahmi kara qofkii ka shoodo roon baa unbay xulan karaan moogta marka waxaa rabaa hadalku uma daalinay inaad marwadeeda noqoto rabaa kolley tartanna waa soo galay oo tartankaasaa soo galayna dee waa tartan adag dee nin ragga waa guul daraysta ama waa guulaystaa labaduba waa laba isku dhiman kolley inaan in lay doortaa waa dadaalkayga in la ii hiiliyaana waa gaari gobonimadeeda marka dhankaaga ku xidhan tahay anigu waan dadaalayaa marka waxaan rajaynayaa jacayl qurux badan oo nolol qurux badan kolley noloshu waa waayaro kooban oo waqti yaro gabaabsiya weeyaan laakiin waxaa qurux badan inta waxaan ku ballan qaadayaa anigu intaa dunida dul joogto adduunyo kugu xidhan maayo laakiinse daryeel iyo farxad dhammaystiran intii gabadh lagu habi lahaa dulqaad iyo miisaan la siin lahaa kalgacayl waara la siin lahaa qulubteeda leelalin lahaa qalbi lagu xadraya la siin lahaa intaba diyaar baynu ku lahay ka shaadan inaan hanto ayaan rabaa waxaa weeye quruxdaada jooggiyo jamaadkaaga jalleecaaga araggaaga indhahaaga soo jiidashada badan leh markaan arkayba ka sheega way qushuucda jannooy intaan jacaylka aan la jabi lahaa waxaa rabaa inaan dhinacaaga aan jejeedo dhinacaaga guul baan rajaynayaa isaragtiba walaal horta inaad isbarno ma dhibad ka qabto may walaal dhib ma laha soo dhawo laba qof mar bay isbartaan soo ma sax marka maanta isbaraan aan gartay maxaad kale markaa barashadeen caadi walaal soo dhawo magacaaga walaal isma anigana ay diris baa soo dhawo kolley
ujeeddada halkani waa waxa laga yaabaa inay macnuhu ku dhaafsan yahay of course way dhici kartaa soo maaha kolley inan meel fadhida markuu ilu tago shukaansiyo kolley waxbaa iman karaa soo maaha haddii aanan ujeeddo kale u socon hal ujeeddaan u socdaa taanaan kuu sheeganaya صح kolley raggiga soo horreeya halkan soo fadhiista kolley qofka adiga aad aragto inuu kuu qalmo ama aad isfahantaan unbaad ka dooranaysa saan filaya صح khasab maaha inaad doorato khasabna maaha inaad diiddo صح haddaad diidana qof la diido kuman horreey haddaad i dooratana qof la doorto kuman horreey kolley kuu faani maayo ka odhan maayo waad i dooranaysaa laakiin shakhsiyaddeedan marka hore aan iskaa baro kolley marka inaan la shukaansanayo dadka qaar been bay u sheegaan dadka qaar run bay u sheegaan صح haddaan ku dhaho nin hantiilaa baan ahoo xaaji baan ahoo lacag baan haystaa been baan kuu sheegay haddana laakiin ku dhaho qof dadka la mid oo waqtiyada qaarna hela waqtiyada qaarna waayo un baan kolley waan shaqeeyaa ardayna waan ahay marka adigay kugu xidhanta inay doorato in kale ina dhamacow iska soo bax kolley haa rajo fiican waan lahaa saaxiibadayna oo tacsiyadaynaya